بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan sida lala wada socdo waxaa 12 bishan ku dhawaaqnay in 15 Abriil magaalada caasimadda ah ee Muqdisho lagu soo rogi doono bandow ka bilaabanaya 8 fiidnimo kuna eg 5 aroornimo tallaabadaas oo qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo faafidda xanuunka khatarta ah ee coronavirus haddaba waxaan doonaynaa inaanu mar labaad ku wargelino shacabka Soomaaliyeed inuu dhaqangalka bandowgaas uu bilaaban doono caawa 8 fiidnimo haddii Ilaahay idmo sidaa daraadeed waxaanu muwaadiniinta sharafta leh ka codsanaynaa inay u hoggaansamaan ciidamada amniga waxaa la farayaa inay ka howlgalaan dhaqangelinta bandowgaas iyagoo hubinaya inuu si buuxda loogu hoggaansamay bandowgani sidaan horeyba u sheegnay waxa uu saameyn doonaa dhammaan ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka iyo dadka marka laga reebo goobaha lagu iibiyo raashinka qalalan iyo xarumaha caafimaadka sida cisbitaalada iyo farmashiyeyaasha sidoo kale bandowgani ma saameyn doono saxaafadda oo hawlo muhiim ah oo wargelin iyo wacyigelin isugu jira u haya bulshada Soomaaliyeed waxaana la farayaa booliisku inay saxafiyiinta u fududeeyaan hawlahooda waxay kaloo ku caawini doonaan dadka xanuunsan ee cisbitaalka u socda sidii ay u gaari lahaayeen goobaha caafimaad si ay u helaan daryeelka caafimaad ay u baahan yihiin. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.